بسم الله الرحمن الرحيم داوديال كسو دhowaada barnaamijka dalxiiska iyo deegaanka oo toddobaadkii mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable oo inkaga imaanaya stuudiyaha magaalada Muqdisho barnaamijka toddobaadkan waxaan booqasho ugu imaanay xeebta Liido xeebtaani waxa ay ka mid tahay xeebaha ugu mashquulka badan ee ka jira dalkeena Soomaaliya sidoo kale xeebtaani waxa iskugu yimaado kumanaan kun oo dad shacab oo ka kala yimaada 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo waliba dad qurba joog ah sidoo kale dadkan waxa u yimaadaan in ay damaashaad iyo waliba dalxiis u yimaadaan iyo waliba in ay ku dabaashaan xeebta Liido haddaba qaar ka mid ah dadka xeebtaani ku dabaalanaya ayaan waxaan wax ka weydiin doonaa bal dareenkooda ku aadan dabaasha iyo waliba xeebtaani sababihii keena inay ku yimaadaan walaal magaca محمد انت maxaa ka soo doontay باشا الله هاي حيبتان بالكور مركز warbixin yar naga sii marka inta istimaad والله وحب ادي wanaagsan oo ciidan cad iyo quruxda xeebtan iyo balaarkeeda iyo kalgacaylka iyo dadka isu muujinayaan iyo baashaalka iyo baarka ku yaala aad u sareysa adi meeqa saac timid waxaan imid hadda muddo hal saac ka hor 10 saac subaxnimo 10 saac maalinimo 10 saac maalinimo maxaa ka soo doontay inaan ku bahashaalo maadaama maalinka jimcaha fasax leenahay aan nafaas ku yeesho marka yaa kula socday waa aniga isla shaqeynaa la socdo ka waran dhulkeena hooyo ee Soomaaliya waxa ka jira xeebo loo dalxiis tago iyo waliba beero dalxiiska ku fiican dadka qurbaha jooga badana waxa ka dhaadhacsan in Soomaaliya aan lahayn meel dalxiis arrimahaas oo dhan bal adoo ka warbixinayo hadalladaas dadka aaminsan ama dadka fikirka ee qurbaha aaminsan iyo waliba dadka gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobolada jooga oo Muqdisho ka aaminsan meel amaan inay ahayn bal dadkaasi ka war والله وفكر آدو خلدان دكا قواني أنا خاص أهاني حيابا أنا كسود الحيسي أدون كم حكي تيرو مليندي يا حيبتا ومباسا عنقاري حيبتا نعم حيبتا سلحادي قوة وحيب آدي وقروح بدن آدي وقيم بدن ودن كأمني جيسنا وصافي عنانا يعني توريزم كودن كهالمر مبوش تقروبي كرو لكن حد إن شاء الله تعالى هدي أمني كان سيسعودو ومقدشو iyo goboladan amnigeeda la sii muujiyo oo wararka adduunka ay galaan yani maxay noqon kartaa qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha Soomaaliya soo galo intii aad xeebaha Bombaaso kale xeebta Bombaaso kale iyo waliba xeebihi kale aad tagtay inta ku dabaalanaysa maxay uga duwan tahay xeebtan Liido in ku sugan xeebahaas xeebtan maxay uga duwan tahay horta hore aad bay nadiif u tahay midda labaad ciideeda waa ciid aad quality oo white sand lahaa white sand waa yani waa ciid cad oo dadka aad u xiiseeyaan siiba qurba joogta markaana khayraadka iyo malayga iyo waxyaalaha laga helo iyo badan hoteeladeeda iyo wadamadaas kale way leeyihiin laakiin wax natural asan ma laha marka ma islihi ka dhaayeen waxba ka dhiman maadaama adiga xeebihi qurbahana ku soo dabaa dabcan wax badan ka dhiman wadanka waa wadan soo korayo ilmaha markuu dhasho uu fariistaa uu guurguurtaa laakiin way soo kacaysaa tartiib maxaad soo jeedinaysaa ugu dambeyn dadka ka daawanaya telefishinka Home Cable ee qurbaha ku sugan kuwa Soomaaliya jooga cid walba ku daawanaysa maxaad soo jeedinaysaa wallahi maxaan soo jeedin lahaa dhaqaalahooda iyo maalkooda iyo xoolahooda inay wadankooda hooyo u soo celiyaan inay tourismka wadanka ay boost gareeyaan intaas aan soo jeedin lahaa barnaamijka dalxiiska deegaan oo toddobaad walba aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable barnaamijkan waxaan uga hadalnaa sida dalxiiska iyo waliba goobaha taariikhiga ee ku yaala dhulkan hooyo ee Soomaaliya badani Liido waxa ay ka mid tahay xeebta ugu mashquulka badan ee dadka shacabka inta badan u soo dalxiis tagaan isla markaasna ay yimaadaan si ay ugu dabaashaan sidoo kale biyahana aad daawanaysan waxa ay leeyihiin caafimaad dadka Soomaaliyeedna inta badan waxa ay keensadaan carruurtooda waxaana isku yimaada dadka qurba joogta sidoo kale kuwa dalka gudihiisa ku sugan dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa xeebtan yimaada
jirnaa barnaamijka dalxiiska iyo deegaanka annagoona barnaamijka saan horeyn kugu sheegnay maan ku imaanay xeebta Liido oo boqolaal iyo kumanaan dad ah ay iskugu yimaadaan سهل عبد الرحمن إبراهيم سهل حاجة كتير نيروبي كينيا وقتها حيبته محاكا صدانته حيبته نحاول ماذا دلحيس يضباش هنا ضبالو يباشال أو ما نيروبي ملاذا هاي ميلا لقو ضباشو يوليو بدو وين ميلا ولاذا بدو وين ملا سويمين بول أو العق كدي بيسيدا لاذا ماشان فريته العق لقو ديبا حقا العق لقو ديبا لكن انت waxa meel free ah wax micna lacag laga ma qaado free way hay meeqa saac timid waxa imaadee hal saac hadda ku dhawaan jooga 10 saac imaadee waa tahay yaa kula socday maamada ay la socotay hooyadeeda iyo walaalihii familkiina oo dhan familkiina marka mar walba ma timaado mise maya mar walba ma imaado aniga mashquul askay mar ay imaada fursad u helo ha waa tahay ka waran marka maadaama xeeba Kenya oo kale aad joogtay oo lacag laga qaado xeebtan Liido oo kale lacag aan la iska qaadin maxay ku kala duwan yihiin maxaad ku aragtay maxaa kugu yaabka badnaa intii aad joogtay maxaas kugu farxadda badnaa meeshan dad badan ku arkay niidi ku dhisaysa hadda bahar gashid in lagu badbaadinayo وانا فري حق العق ريبا انت waxay ugu wanaagsantahay lacag la'aant saasi ugu wanaagsantahay هي ان maxaa ku timaan oo meel fiican wallahi billaah markasto oo xiisaysa aad mar hore ugu dambeysani aad ugu xiisnaa inay imaadaan badda alxamdulillah maanta dadkii maada kamid ah asxaabtaadii Nairobi iyo dadka qurbaha jooga maxaa u sheegay waxaan u sheegay inay imaadaan mar oo xamar imaadaan dhulkooda waaye oo badana imaadaan meelaha ugu wanaagsan xamarna inay soo daydayaan saasaan ay adaa mudan magaca السلام عليكم فاهم علينا ما محاش فاهم حيبت الليدو maxaa ka soo dantay حيبت الليدو والله was nice waa meel wanaagsan awadeena iyo badda ma sha Allah waa wanaagsantahay goorma timid January sanadkan qurbaha maad ka timid mise dalka joogtay way Afrikada ka timid Kenya ka timid intii aad Kenya aad joogtay iyo intii aad xeebta ama Soomaaliya oo kale aad joogtay maxaa ugu yaabka badnaa maxay isku kala duwan yihiin xeebahaas wallahi billahi aad waa kala duwan yihiin boqolkiiba boqol Mombasa u tagi jirnay badda hadaan rabno oo safar u gali jirnay laakiin safar male badeena haysanaa dhulkeena haysanaa marka waxaan leeyahay dadka oo ku maqan qurbaha wadanka la maalgeliyo ala soo laabto ma la arkay qurba dibkeeda dalkaaga dalahayn dareen ku joog waaye waaka marka had saaka timid saacad ka hor waa joogtay ilaa xeebta inta soo ku dubaanaysa yaa wada marka caruurteeda wada iyo wiil yar oo Kenyatta soo korsaday oo Kenya iga soo raacay wiilkan isaga Kenyatta waa tahay Kenya ka soo korsaday Soomaali ma yaqaan waa tahay hay'ad maxay ku fiiriyay maxaad ugu soo maxaa ugu baaqaysaa dadka ka daawanaya TV-ga oo keebal qurbaha joogeen ama dalka joogeen wala marka waxaan salaama walaalahay abriyalkay eedooyinkay reer Shilaale reer Umar Xaaji Abuukar oo wada salaamihiin waxaan leeyahay wadankii ala maalgeliyo oo lagu soo laabto dib weyn aan soo marnay dadka harta ku nool Afrikada dadka Yurub sheegay kar laakiin Afrika dib weyn aan soo marnay Kenya waa aragnay Uganda waa soo aragnay South Africa aad oo soo dhibaatoonay waa tan nabadgelyada ka hor nabadgelyada magaalada Muqdisho nabadgelyada boqolkiiba boqol wala lugteeda aan ku socdaa wax hadda cabsi ma dareemaysid maya ma sha Allah Soomaaliya arkaya wax kala iga hor imaanay shilay male dad Soomaali walaalahay aan jeedaa ka waran marka xeebtaana ku gooras xeebaad ma mas'uuliyad ma jasiira tagay iyo Liido xamar weyne xataa waa tagay badda xamar weyne waa kaas adiga marka meeqa sano aad ka maqnayd gudaha waxaan qaxay waagii Itoobiyaanka aan wadanka ka baxay 2003 ga soo laabtay 2000 soo laabtay marka wadanka waa
maalgeliyay ma sha Allah waxaan ka shaqeeyaa business aan ku leeyahay meel internet meel koofeera maqaayad wax walba aan ka furnay business ka sameeysan business aan ka sameeyay lambar Afrika ku taala waa tahay marka maxaad u leedahay u sheegaysaa dadka iyagana qurbaha jooga sidaadoo kale inay ku gudsadaan dadka dareenka jooga dhulalka shisheeye waxaan leeyahay waddankiina maalgeliyo waddankiina ku soo laabta maxaad ka soo doontaa inaan raacisto badan u maday inaad ku dabaalatid qasaaca timid haday 8 saac yaa ku socday dad badan magaca faiso xagee ka timid Nairobi haye xeebtan magaceed liido xeebtan ma kugu horeysa marka xeebad maya haye meeqa xeebood ya laba xeebood magacyadood liido iyo jasiiro inta maxaa ka barataa English school English ka baxo iyo Arabi iyo diini يا سلام صح يا شيء فاميلي ايوه ما صدق waxaa la yiraahdaa maxamed ciise cabdullaah maxamed muqdisho ma degantaa mise qurba muqdishaan deganahay aniga weligeena kama bixin degmada degantaa wardhiigley wartana exactly goormaa timid xeebtan waxaan imaaday maanta 9 saac bar waxaa ka soo doontay inaan ku soo dalxiiso aan ku baashaalo waa ka sidaas yaa kula socday asxaabteeda ila socotay aniga asxaabteeda banooni baan dheelaynay haddeertaan hal markaan khariish ka doon keebal aan waxaan isir xoogaa ra'yiga ay ka dhiibay waa tahay see u aragtaa marka xeebtan iyo weliba dadkan ku dabaalanaya badda dadkan Soomaaliya ku sugan beeraha ku yaala waxyaalahaas oo dhan oo dalkeena ka baxsay aragtay waxyaabahaas oo dhan waan ku faraxsanahay inta joogto way la baashaalaysaa inta maqanna waxaan ugu baaqi lahaa inay damaashaadka igala qayb qaataan maxaa yeelay waxaan leenahay xeebo waaweyn goobo dalxiis oo fara badan inta maqan waxaan ugu baaqayaa inay imaadaan ay ila baashaalaan maxaa dadka qurbaha ku jooga u sheegaysaa waxaan u sheegayaa inay halkan yimaadaan ay nala damaashaadaan ay nala raaxaystaan waddankeena waa waddan barwaaqo leh oo wax walba leh shaqo iyo wax walbana way taallaa waxaan ugu baaqayaa inay waddankooda door bidaan inta qurbaha lagu dhibi lahaa ammaanka runtii hadda sidii hore waa ka fiican yahay waxay waabihii badnaa barbareemka hadda waa dhammaadeen hadda wax dhiba kama jiro qalalaasaha inta badan qurbahuba ku badan yahay hadda sidaad dareemayso xaaladda Westgate ka jirta waa la socotaa marka waxaan ugu baaqi lahaa Soomaalida Kenya iyo qurbaha kale ku noolba inay imaadaan halkan ee nagula wada baashaalaan barnaamijka dalxiiska iyo deegaanka iyo telefishinka Home Cable ayaan dhexbarta uga jirnaa annagoo xeebta liida ku imaanay iyo waliba dhalinyarada ku dabaalanaysa xeebtaasi waxyaabihii ay ka soo dooneen Soomaaliya waxa uu ka mid tahay meelaha ugu barwaaqo badan isla markaasna dalxiiska inta badan loo soo magacaygu Axmed Ismaan Maxamed waxa soo doonay inaan soo dawaasho soo doontay saakis waxnimo imaaday 9kii ilaa hadda noo dawaalinayaa adiga ma Muqdisho degantaa mise ها مقدشة دقناها يعني ها مقدشة. ولقى مكبح لمقدشة. ها ودك بنانكي سواء هذه لكن 2010 كي ما لو كنت تونكي كي ما هذا. أمريكا كانوا لاجري أتلانتا قال أتلانتا لكن 6 سنة أكل وكم خنا حي. I'm very happy to be here, you know. Okay, maxaad marka ay ku kala duwan yihiin wadamada qurbaha tagtay iyo Soomaaliya dabaasheeda oo kale iyo waliba goobaha dalxiiska. Horta meesha tagay halkan waa kala duwan yihiin. halkan bad weyn waayo oo liido waa dadka dhan way yaqaanaan aad u weyn tahay laakiin meesha kale swimming pool waay meel yar oo lagu dawaasho xitaa lacag ay dhiibaysa lacag ku galay laakiin inta free waay lacag dhan ma leh sidaa u dawaalanaysaa
way kala duwan yihiin uga faa'iideysanaysaa barnaamijka dalxiiska deegaanka waxaan jeclaan lahaa inaan salaamo walaalkay oo jooga Atlanta Maxamed Cabdicasiis iyo dhammaan dadka muuqaalkayga iyo maqalkayga taqaana waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan jumco wanaagsan intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka dalxiis iyo deegaan oo toddobaadkii mar aad ka daawataan telefishinka caalamiga ee Home Cable xaruntiisa magaalada Muqdisho barnaamijka inta badan waxaan uga hadalnaa goobaha dalxiiska iyo waliba goobaha qadiimiga ah ee ku yaala dhulkoona hooyo ee Soomaaliya sidoo kale barnaamijka dalxiis iyo deegaan toddobaadkan waxaan ku imaanay xeebta Liido oo kumanaan shacab ay iskugu imaadaan isla markaasna ay ku dabaashaan barnaamijka waxa idin soo saartay anoo Kawsar Cabdinuur Aadana waxaana barnaamijka soo dabariday Qaadir Axmed Jimcaale dhanka kaamirada barnaamijku waa Cabdiqaadir Axmed Gacal sidoo kale tan barnaamijka waxa dhanka farsamada ka qaabeynaayo Cabdifataax Cabdullaahi Hiloole inta barnaamij mid kan la mid ku kulmi doona sidaas nabadgelyo